dadaal ay galeen gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo gudoomiyaha xisbiga urud jiral faysal cali waraabe dadaal ay u galeen soo dayntayda ay ka soo dhameeyeen madaxweynaha inuu igu sii daayo cafis madaxweyne ayaa arrinkan ku soo dhawaaday laakiin warar kale waxay sheegayaan in aad jeelka ku xanuunsatay sidaa daraaddeedna madaxweynaha markuu eegay in caafimaadkaaga uusan wanaagsanayn uu sidaa kugu sii daayay xanuun waa jiray iminka muu ahayn muddo ay ka soo wareegtay iminka hadda xaaladdeedu waxa weeye way soo ladnaanaysay ama way fiicnaatay ba alxamdulillah maalin maalin kadib soo fiicnaanaysay laakiin ma ogi xaaladda yani xanuunka in ay u sababaysay xukuumaddu ma ogi anigu taa ilaa iminka ma ogi wax shuruuda oo lagu xiray soo deyntaada miyay jirta wax shuruudo aan anigu shakhsiyan u saxeexay ma jiraan ma ogi haddaadan wax saxiixin laakiin wax hadala oo idin dhex maray mas-uuliyiinta oo lagu yidhi maalan waxaanoo kale ha samayn iyo waxyaabaha qaar ku dhaqaaqin iyo aniga muxuu ahaa shakhsiyan layguma odhan cid kale lagu yidhi muxuu ayagaa ka jawaabi doona laakiin wax gaar oo aniga inta la yimi oo ay xukuumaddu igu tiri waxaa samee ama waxaa samayn ma jirto bal nooga warran marka noloshaadii jeelka intaad ku jirtay muddada sanadka iyo bisha sidaay ahayd niyow noloshayda jeelka wax badan baan anigu kasoo faa'iidaystay waxna waa aan soo baray waxna waan soo bartay macallin ayaan ka ahaa jeelka gudihiisa anigoo maxbuusa arday ayaan waxa aan barayay af carabiga muddoodii aan ku jiray waxaan kusoo arkay maxaabiis aniga tayda iloo siiyey oo runtii muxuu ahaye aan dareemay inaanay dhibibay ahayn wax marka intaad xabsiga ku jirtay jirdil ah oo lagu geystay miyay jiraan abadan ma jiraan wax jirdila oo dushayda la taabtay ma jiraan yani waa ilaahay baan u mahadnaqayaa askartii ilaalada ka ahayd xabsigii aad ku jirtay sidee kula dhaqmi jireen niyow si ixtiraam ku jiro ayay ila dhaqmi jireen way qadarin jireen ixtiraam mutabaadala waxay ii qaban karaan way qabanayeen laakiin waxa weeye dee maxbuus waxa weeye xorriyadda aanay siin kareen yani fursadna waxay siiyeen inaan muxuu ahay dee si fiican ugu dhigo meeshii oo waxaan ugu baahdo qaabka jawiga waxbarashadana way fududayn jireen cabdimaaligow horaa laguu xiray 2017 cafis baa lagugu sii daayey haatan waatan cafiska madaxweynaha lagugu sii daayey sababihii lagugu xiri jiray miyaad sii wadaysaa mise wax baa iska kaa bedelay sababaa laygu xiri jiray ayaa muxuu ahay u baahan in la xuso laakiin anigu intaan ka hadli jiray wanaag baan u arkayey waxaan u arkayey halka hagaagu ku jiro halka toosintu ku jirto oo waxay iga ahayd muwaadin muxuu ahay aragtidiisa bixinaya anigu xabsigii aan la kulmay aniga laftaydu iyo muxuu ahay wixii dhacay oo dhan waxa weeye maanta anigu xagga dambaan dhigay oo dhinac kastaba waxa weeye waxaan usoo jeediyey aynu hore eegno oo aynu bog cusub aynu furno taa macnaheeduma waxaa weeyaan in wixii hore aad ka baxaysid oo aad joojin doontid anigu wanaag baan samaynaya wanaaggii aan waday muxuu ahay dee kama bixin arrimihii wanaagsanaana halkii baan ayaan ka wadayaa laakiin dhinac kalaa jiray oo lagugu eedeynayay inaad kicin samaynaysay inaad xaqiraysay nidaamka somalilan inaad waxyaaba badan oo ka soo horjeeda ama liddi ku ah somalilan lagugu haystay may jirin arrimahaasi may jirin wax xaqiraada may jirin wax kicina may jirin qof shakhsi oo caadiyan ahaa oo barta facebookiisa ku qora youtubekiisa wax ku baahiyaan ahaa marka waxa weeye wanaag baan waday wanaag waxa weeye toosin in si aan dhabo khaldan aynaan u marin ayaan tilmaamayay cabdimaaligow dad baa waxay ku doodayaan inaad magac raadis ahayd oo weliba aad mararka qaar isticmaalaysa waxaan jirin dadka fikradda noocaas qaba maxaad ugu jawaabaysaa runtii waxba kama jiraan inaan magac raadinayay waxa weeye alxamdulilah dad badan oo soomaaliyeed waan isnaqaanaa nin dad raadinaya inay bartaan maan ahayn dee fikrado khaldan oo qofka laga faafiya way jiraan wax khaldan oo aan beena oo aan baahiyey oo facebookayga laga soo helayaana ma jiraan aad ban anigu isaga dhowri jiray wax aan jirin inaan baahiyo waxaan ku dadaali jiray cidda aan dhaliilayo inaan run ka sheego xitaa haddaan ka hadlayo ma siyaasi baad tahay ma samafalaad tahay ma qof dadka u doodaad tahay ma weriyaad tahay dad badan baa su'aalaha isweydiinaya marka maxaa tahay waxaan ahay bani aadan baan ahay dareen leh oo dareenkiisa aragtidiisa ku gudbinaya kala qaybinta noocaasa aad baan uga soo horjeedaa in qofka lagu yidhahdo ma waxaanaad tahay mise waxaanaad tahay maba koobnaan karo qofku marka waxa weeye qofku nolosha ku hareeraysan inuu aragti ka dhiibto nin go'aansaday inaan aragti ka dhiibto baan ahay waxaad tidhi waxaan doonayaa in wixii hore laga tago oo laga soo gudbo oo haatan cutub cusub la furaa marka ma lagugu qasbay hadalka may laguma khasbin laba wadaan haystay inaan xanaf iyo nacayb iyo aargoosi aan ku hadlo iyo inaan haadiyo gacanta wanaagsan markaa waxaan go'aansaday inaan taa wanaagsan aan furo marka maaha wax laygu khasbay waa go'aan aan qaatay anigu haatan xorriyaddaadii baad dib u heshay maxaa kuu qorshaysan inaad samaysid runtii shaqada ugu weyn ee ugu muhiimsan aan doonayo inaan qabto waa barnaamijka kaalmee kuwan ee samafalka ahaa inaan halkii kasii wado oo aan ballaariyo ayaa ii qorshaysan